بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا قم قاعد هاي برخة شام حرسي بطون كان مدى يرضى ضلكا وحن ما أنت شرفة قدر وني قيمة مقلنا أكتد كجوية إن كقيب قاطو برنامج كا مجلس اللي لهذا وهي لحليقة هنكله ورنتي قف كسته وهلقى النولاد كتيرة وهموم يهمي يهيكسي يهدف النولاد بله ونلقى مهنقيا لأن يرضى قراتي مكده يأباب الكبرنامج كان وحن كقيب قادنا موضوعه هليقة هنكله ما أضيباه ما قف دمراه ما وداد باه ما قيبها كلا الدوان اي قودهان بالشدا بسوا لأن يرضى ذلك أصوب حيسا runtii wadaaggan idinla wadaagayo muuqaalkan koobani maaha midaan anugu mudanahay inaan ahay qofka ugu aqoonta iyo aragtida iyo awoodda badan bulshada laakiin walaaluhunbaa ay soo biday kelmad kooban oo qusaysa dhallinyarada inaan runtii la wadaago marka si kooban looga hadlayo dhallinyaradu waxay leedahay waqti iyo waaye kala duwan xiiso iyo xulasho gaar ah oo maskaxda raad ku leh oo dhacdooyinka waqtigaa dhaca ay inta badan taariikh gaara ugu suntamaan qofku markuu weynaado ayay leedahay qofka dhallinyarada inuu nolosha guul ka gaadho waxa u sababa kolba cidda ku ag xeeran iyo hadafka iyo hiigsiga iyo horumarka uu raadsanayo ciddu kaga dabadayanaya cidda ay tahay diinteenna suuban waa inoo sheegtay nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana fii kulli jaanib alxayaa dhinac kasta oo saktar kasta oo nolosha ka mid ah cidda lagaga dabadayanayo ee hoggaanka iyo halyeyga hiigsiga laga qaadanaya inuu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadday tahay aqoonta hadday tahay tarbiyadda haddii ay tahay macaamil macanaas dadka saa loola dhaqmo haddii ay tahay hogaaminta haddii ay tahay deeqsinimada haddii ay tahay akhlaaqda haddii ay tahay ammaanada kulli shay yacnii ciddaynu marti uga nahay aynu ka qaadana waa rasuulka qur-aankuna inta badan markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu basharka la hadlayo waxa uu kula hadlaa ambiyo ayaanu soo dirnay ambiyada inta badan la soo diraa humuum bay leedahay iyo hadafkiiyo humuumta ambiyaduna waxa weeyaan waa badbaadada ummadda dunida oo dhan gaal iyo islaamba kuu doonaba ha ahaadee cidda la doonayo inay hadafkaa qaado oo ay qoysnimada iyo qabiilka iyo qoomiyadda iyo meelaha gaagaabanee lagu wareega ay ka baxdo heer qaaradeed oo dunida ah ay u fikirto oo hamiga rasuulka ay xambaartaa waa dhallinyarada oo aqligoodu uu ka fayow yahay balwadda uu ka fayow yahay qabyaaladda uu ka fayow yahay xanuunada oo daaqo innaba aan caadi ahayn ay ku jirto leannu qofku markuu weynaado boqoshada iyo laxajeclada iyo buqdigaa ku bataa laakiin markuu qofku dhallinyarada yahay kudhac iyo dhiiranaan fara badan buu leeyahay ambiyada ilaahay markuu soo dirayo wuxuu ku soo diraa ma aha inay busnes ka shaqeeyaan ma aha inay ganacsato noqdaan ambiyada markuu ilaahay soo dirayo waxa koowaad oo ku soo diraa ma aha dan shakhsiyadeed kama shaqayso ambiyada ilaahay waxay sharaf ku leedahay oo ilaahay ku ammaanaa ooy qiimo ku helaan oo waa shaqo gaaroo ilaahay u dirto oo ah badbaadada ummadda nebi kastoo ilaahay ummadda u soo diro haddii ay tahay nebi aadan haddii laga soo bilaabo abtu nebi maxamed waxay ka hadlayaan waxa weeyaan waa one topic bay wataan topigooduna waxa weeyaan yaa ummatii ويا قومي ويا عبادي مركا يا عبادي وحي هذا هو إلهي سبحانه وتعالى وأضومد إلهي عند يساق كحلا أمتي يا قومنا عند استعماشا وأنبيادا مركا أنبيادو بوسنس أورينترنا ماها بوليتيكال أورينترنا ماها جانب كلا أو نرشانا إياغو كما تعلقانا وحكو تعلقان وبدبادة أمدا لقى بدبادينيا عذاب لقونا حيريو إلهي سبحانه وتعالى ساي جنديسا كودلبان
همومتا يا هنكاسا لو باهيا dhalinyarada jirtaa inay qaado oo dadka ay gaarsiiso maalintii markuu qofka dhalinyarada soo tooso imisuu booqdaa qof xanuunsanaya imisuu agoon wax taraa imisuu jinaasa ka qayb galaa imisuu nolosha bulshada wax ka qabtaa sa imisuu isagu intuu koob shaaha cabo soo tooso uu seexdo oo cuno kubadu daawado oo aanu nolosha bacol isku lahayn imisaa hanka iyo humuumta iyo hamiga ku jira uu gubaa uu ka damqaa dal iyo dad iyo diiniba siday baaba u tahay taynu doonayna inaynu isla wada qaadanaa waa taa halyeyga hanka laga hadlaya hamiga laga hadlaya maaha mid qoys maaha mid qabiil iyo mid qaraabe waa mid qarannimada iyo qoomka ummadeed ee islaamka anfacaysa barnaamijkan hanka ee dhalinyarada lagula hadlayo waxaan qabaa kow inuu u baahan yahay qofku markuu hamigu dhalanayo wuxuu ku dhashaa waa attention ama waa dareenkaas marka dambe noqda action oo ficil noqda hamiga qofkuna wuxuu degaa waa qalbiga uu xanxanteeya waa laga seexan waaya riya noqota rajo muuqatay noqota rumaan meel dheer ku yaalo rajo ama riya hayse noqota goor la goosanayo ama isagoo hawaaya ama kuwa dambe hawaayaan cid un baa u ayda hamiga qofku ibnu jawsi imaamka islaamka wuxuu leeyahay qofka han kale nolosha xayawaanka uu ka yakhyakhsooda nolosha xayawaanka laga yakhyakhsoonaya maxay tahay ibnu jawsi leeyahay waxa weeyaan kow xayawaanka ilaahay imkaaniyaadku siiyey isha afka adinka intaa wuxuu ku arkaa waxa uu cunayo ama ha noqoto xayawaan kale oo uu cunayo amaba ha noqoto waxa la yidhaahdo cawska markuu dhergana uu baqlaya markuu baqlayana qariiso jinsiya ayaa ku abuurmata taasaa keenta markaa isaguna inuu galmo sameeyo markaa basharka han kale intuu wax cuno ma seexdo galmo iyo hamiye humuumtaasina kuma dhacdo laakiin hankiiyo hamiga ku dhaca waa wax intaa u diida marka dadka han kale nolosha xayawaanka ma lehe waa nolol ummadda loogu fikiray yeeshaa qofka maxaa ka saacidaya haddaba su-aashu tahay inuu han yeesho oo goolkiisa uu gaadho oo uu meel fog maro oo gaalada dadka taariikhdooda ku suntani waxay ku suntan yihiin iyagu hiigsiba culmination wax la sameeyaan waxay hiigsadaan dadka taariikhda iyaga ugu horeeyay iyo waxay soo kordhiyeen qofku inuu guul gaaro waxay ku xidhan tahay inuu ka agdhawaado dadka isaga aqoonta ama adduunka ama aragtida ama awood kalaba dheer afartaa sifo ayuu qofku saaxiibka uu leeyahay uu ku dooranaya rasuulkuna wuxuu yidhi almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaali qofku waa diinta saaxiibkiiye cidduu ka shidaal qaadanayo dhaqanku leeyaha ha iska eego haddii aad doonaysa inaad siyaasad gasho ood ummadda ugu gargaartood ugu hiiliso siyaasigaad la socotaa ha noqdo mid adinkiisa iyo afkiisa iyo ibtiisa iyo uurkiisuba xoolaha ummadda ay ka nabad gasho oon xaaraan cunayn haddii aad doonayso inaad aqoonyahan noqoto aqoonyahanku mid hintaa aynu sheegno oo kale ka nadiifa waa inuu noqdaa kuwaasaa kaa saacidaya inaad hankaaga iyo himiladaada iyo goolkaaga aad gaadho caqabadaha ku xeeran inuu qofku han iyo himilo fog uu yeesho kontagaska ama waaqaca nololeeda hadda dalka iyo deegaanka aynu ku nool nahay waxaa ka mid ah qabyaaladda qofkii oo karti leh oo wax qaban karaya oo qarankii laabta ka gubayo ayaa haybtu ka soo jeedo ama cidda uu yahay iyo waxaanu galabsan toona dib loogu dhigaya waxaa ka mid ah balwadii qofkiioo taalan fiican leh oo si fiican u socon karaya oo awood hogaamineed ay ku jirto oo kaalin muuqata nolosha bulshada ka geli karaya ayaa dhalinyaradii ku xiranayd ama ciddii kale ku xiranayd balwada ay baraysaa waxaa ka mid ah inuu qofku hankiisa iyo hiigsigiisa gaari waayo inaad aragto inta baldad basharo inta loo yeedho uu ninku leeyahay maanta anaa iskugu kin yeedhay ma odhanayaan yacni qofka isugu yeedhaya ma odhanaya maanta innagaa isku nimid laakiin heer wuxuu gaadhay in gumaysiga ummadeeda ina haystaa inuu qofku yidhaahdo anaa isugu kin yeedhay nooc min alisticbaad adhiyoo kale basharka ay noqdaan kuwayaalahaasi kuwa kaleba waxay keeni karayaan in humuumta iyo hanka qofku ay dib u soo dhacdo heer bay qolada gaaladii gaadhay ninka michael jackson la yidhaahdo waxa uu ahaa shakhsiyaadkii dunida ugu saamaynta badnaa wuxuu ku jiray marka diinteenna la eego shar bay ahayd laakiin ninkaas wuxuu ku dhacay khuluqii iyo abuurkii ilaahay siiyey ee afrikaannimada ahayd inuu jidhkiisii bedelo uu dhalaangadis ku sameeyo inuu sankiisii jaro in uu yidhaahdo ilaahay siduu u abuuray sidan may ahayne sidan kalaa ka qurux badneed oo optionkaa u qaato
saamayntu nolosha ku yeeshay waxay keentay isagoo foolxumada iyo xadgudubka jirkiisa ku sameeyey heer saxaafaddu ay waxba ka sheegi kari wado lagu jeclaado sababtuna waxay ahayd taalankii ilaahay siiyey ayuu sideeda uga midho dhaliyey ama islamic perspective kama eegano laakiin waxaan ka eegnaa qofku calaal xitaa shar hadduu ku jiro sharka laftirkiisu hadduu taalankaas uu sideeda u isticmaalo daaqada ilaahiyanta uu sideeda ugu isticmaalo inuu saamayn ummadda ku yeelan karayo taasina waata keentay inay saxaafadda westranka iyo taageerayaashii dunida uu ku lahaa ay ku nici waayaan xadgudubka jismi jireed ee jirkiisa u geystay waxayna yidhaahdaan waa shakhsiyaddii labaad ee dunida soo marta qarnigii tegey ee ugu saamaynta badnaa waxay taasi ku dhacday wuxuu dareemay hibada ilaahiyanta ee ku jirta iyo kaalintuu uga faa'iideyn karay kuwada kubadda ciyaaro waynu dareemi karaynaa aqliyadiina kooban baan idinkula hadlayna iminka hadda maanta o dhan laga sheekeeyo cumar binu khadaab hadda laga sheekeeyo cismaan binu cafaan hadda laga sheekeeyo abubakar hadda laga sheekeeyo dadkii taariikhda yacnihii quruun ku suntanaayay quruxda iyo qiimaha dunida wax badan ku soo kordhiyey ufuqiinaan qaadayno iskoobkiinu wuxuu la haystaa hintan soko iyo hinta maskaxdiinu la garaadka tahay deer farban marka exaambulada iyaga ku soo qaadanana exaambulkan uu soo qaadanana ma aha wax positive oo fiican ummadda ay ku soo kordhiyeen awoodda kugu jirta inaad adigoo islaama oo diintaadii haysta oo qiimo iyo quruxba leh oo dalkaagii jooga oo ilaahay ku karaameeyo oo karaamo gaala haysta ku ka fiican aad haysato inaad ibriiq reereed ku adinto inaad ibriiq qoys ku adinto inaad balwad iyo jaad iyo sida riyaha aad cunto inaad qarmuun iyo qadhaan iyo sigaar iyo waxaasun aad ku meeraysato oo noloshuba intaa ay kaaga lunto waa ayaan daro waxaan la qabaa walaashahooda ayaan saddexdaa marxaladood ee qofku soo maraya 20ka hore wax lagu gelinayo intaanad 20ka wax lagaa raba aanad adigu gaarin 20ka adiga wax lagu gelinayo waa inaad self sufficient aad gaadhaa isku filnaansho shakhsiyadeed ood hooyada iyo qoyskiinni culayska kala dul dhaqaaqda oona tahriib iyo tiiraayo iyo wax iyaga qalbigooda labjab ku ah aanad la imanin ee adigu dib qaranka iyo ummadda iyo qoyskaad ka soo jeedaad wuxu tari karaysaa waxaynu doonaynaa qof islaama ama qof dhalinyara oo subaxdii markuu soo toosay intuu adkaarta akhristo ku fikira schedule intuu samaysta idhaahda saaka imise aas baad ka qayb geli karaysaa imise qof oo xanuunsan aad booqan karaysaa agoon tabaalaysan maxaad u qaban kartaa qof buka maxaad gaadhsiin karaysaa qof waayeela waddada ma ka tallaabin karaysaa ummaddu ibtaada iyo afkaaga iyo uurkaaga ma ka nabadgeli karaysaa qofka la doonaya laga hadlayaa qof kale maahee daawada waa adiga waanad bedeli karaysaa waxaan ku gabagabeynayaa oo mawduucan kaga baxayaa hadda iyo hadhow mar kasta iyo meel kaste u hiili haliyeyga han kale